عملوا دقمدا ما أنتوا كتجي أنا أفضل قد بيس اللي أنا أقوله كده على غير ديان دقمدا واجبنا حفلتي قدوميه إنه عصر مع منور جابو حفلتنا يا رئيس كرام معها هدو إلى النفط ونقسمه لما ما نكذب إن شاء الله ودو إلى النفط ونقسم حفلتنا وجاء ما أنت سود دوين واي قال كعيل أقبنا قدوميه هني معمول مالية ده مدن محمد نور جابو oo markii saddexaad wax qabadkiisa loo bagay koow waxa horta mahad iskale mudane madaxweyne Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gare waxa ku sii xigo gudoomiyaheena gobolka walaalkeena Najax waxa kale haddana mahad iskale maamulka gobolka odayaashii waxgaradkii dhammaan intaas kadib gudoomiye Maxamed Nuur madaxda waxay mar saddexaad xilkiisa ay ugu soo celisay waxa qabadkiisa Maxamed Nuur degmada maalintuu ka tagay ana afad ugu dambeys ilaa ana ururka dhalinyarada degmadu waa joognaa Maxamed Nuur hadda waxa huwa maadaama uu ku soo laabtay degmadii xarunta maamulka ee degmada inay bilacdeeda isla maanta waxa laga dareemay inay bilacdeeda ma sha Allah ay tahay waxaana ka rajaynaynaa gudoomiyaha xaruntan waliba waagi hore xataa ayadoo biilaana waa ninka ceelka faag haddana waxaan ka rajaynaynaa inuu xaruntan dhismaheeda dib loogu bedelo hadda dhalinyarada aan nahay waliba gudoomiyaha maadaama dhalinyarada degmadii aan nahay oo xafiis naga siiyo oo anigana isku wareysano xogteeni mid kale waxaan aad asna u soo dhaweynayaa gudoomiye ku xigeenkii ee abniga Mahdi Axmed Xasan oo asigana dadaal inuu wax qabto labadoodu hadday isbiirsadaan gacmo wada jiri wax ku gooyaan maamulka degmada kulli waa maamul wada dhalinyaro ah waa maamul aqoon-yahan ah waxaan rabnaa marka in mar walba dhaliisha laga dhaaforto qabadkooda ku aragno insha Allah ta'ala walaalkay Maxamed Nuur ku soo dhawaad degmadaadii dalkaagi deegaankaagi libax duur joogo ma sha Allah